run ahaantii sheekadan waxay nagu dhacday haweenada ka mid ah. Waxaan ka nimid Xayaat Market Muqdisho. Habeenkii markii aan nimid xaafadeena 4 saac iyo bar waxaan aragnay in daaqada ay jabsan tahay. Runtii Ilaah waxaan ka baryayay in waxaan ay noqdaan wax iska caadi ah. Laakiin walaalkay oo ila jira ayaa wuxuu sheegay in ay yihiin waxna soo weeraray tuugo. Kadibna waxaa saarnaa meesha sawiradeena oo dhan, aniga iyo hooyaday iyo walaalihii oo dhan iyo walaalkay. Waxaynu ka aragnay meesha sawirka inuu god uu ku qodan yahay kadibna uu ku sii dhaxbahay. Runtii maalinkaas iyo habeenkaas oo dhan aad iyo aad baan u walwalsanayn. Haweenimidkii xilli roob uu da'ayay ayaan taleefankayga isticmaalayay. Kadibna wadada cidna ma aysan joogin. Runtii waxaan hubaa markaan inaan caadi ahaa. Qof aan saaxiibanahay ayaan la hadlayay. Abaar markii aan la hadlayay ayaan waxaan dareemayay in wax aad moodo sida cabsida leh camal aan arkay. Runtii wuxuu ahaa nin weyn oo wajigiisa laga baqayay. Kadibna gadaasheeda ayaan eegay. Murugo badan ayaa i soo gashay oo toori ayuu watay. Kadibna aad baan u baqay. Cidna ma aysan joogin meesha oo dhan. Keligii ayaa joogay. Kadibna waxaan isku dayay in aan gadaal u socdo. Cabaar ayaan gadaal u socday. Asagana wuxuu isku dayay in uu isoo bursado. Waan isaga soo cararay anigoo nafteeda la baqay. Aad iyo aad baan u soo ordayay. Runtii waxaan hubaa markan in guriga aan soo gaaray. Wixii igu dhacay dhan oo waxaan u sheegay hooyaday oo waxaan ku dhahay nin ayaan is aragnay. Kadibna mindi ayuu watay. Hooyaday waxaas oo dhan waa ay ka yaabtay, ayada waa ay walwashay. Kadibna waxay wacday booliiska. aad iyo aad baan u yaabnay. Ninkaas wuxuu ahaa nin aan caadi ahayn. Kadibna waxaan ku aragnay sawiradii in booliiska oo dhan aynu u sheegnay wixii aan aragnay. Wuxuu calaamad su'aal geliyay sawirkayga oo markaa meesha ka muuqday. Waxa uu rabay anaga inuu i dilo. Kadibna bartilmaameed ayaan u ahaa oo cad. Laakiin Ilaahay waa uga badbaadiyay. Ninkii ugu dambeyntii waxaynu aragnay meesha uu ka soo galay. Meel oo beer ayuu ka soo galay. Ninkaas hadduu i dili lahaa maxay ugu dhici lahaa aniga oo dhan.